السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام وعبد محمود قلاع يا برنامج كيدين كيما جري معهد كنبض يا بلشده والعاوة waxaynu eegaynaa guusha Soomaaliya ka soo hoysay oo ay ku khasabtay Ethiopian Airlines inay ixtiraamto madax bannaanida iyo wada jirka dhul ahaaneed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Arrintaas waxaan u maleynayaa inay tahay arrin muhiim ah oo dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adda hawada Soomaaliyeed ay runtii ammaan ku mudan yihiin. Ethiopian Airlines iyo dawladda Ethiopia muddo dheer ayay runtii isku dayeen inay wiiqaan madax bannaanideena iyo wada jirka dhuleed ee qaranka Soomaaliyeed. waxaan u maleynayaa sabab inay u tahay karti darro xaggeena oo ayna runtii aynaan aad iyo aad u cadcadayn oo arrimahaas aynaan maaragtay ka muujin muhiimadda ay leeyihiin oo ayna dagaal xoog leh iyo ma garanaysaa dhiiranaan xoog leh aynaan muujin. Ethiopia muddo dheer sidaad ogtihiin ayay marba madaxda Soomaaliyeed qof u yeeraysay, marba ka rabto maaragtay garab siinaysay, hub siinaysay, lacag siinaysay. kala daadsanaanteena aad bay uga faa'iidaysatay. laakiin hadda at least dawladda dhexe waxaa muuqata inay maaragtay ku qanacday Ethiopia inaanay saaxiibna ahayn, aanay mudnayna in ma garanaysaa macaamil wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan midna lala yeesho. sababtu waxa way dhaqanka Ethiopia ama behaviorka Ethiopia runtii wuxuu noqday mid halis ku ah jiritaanka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Ethiopian Airlines waxaa khasab noqotay maadaama international flights ay yihiin oo maaragtay duulimaadyo caalami ay yihiin oo waddan ka imanaya waddan kala tegaya inay qorto magaalada ay u socoto iyo waddanka maaragtay ay ku taalo. Hargeysa awal waxay qori jireen iyo meelahaas Somaliland waddan maaha. Soomaaliya inay qoraan bay ahayd, laakiin malaha inaguna waynu sahlanay saa ugumaynaa si baaraan degin ugumaynaa fiirsan. waxay sababta ha noqoto Dhoofa ha noqoto waxay rabto ha noqoto kartuxmo xaggeena ha noqoto inagoo aan danaynayn qarannimadeena ha noqoto waxa doonto ku tilmaan, laakiin waynu gaabinay inaga iskala dhaliisha. marka imika diyaaradda Ethiopian Airlines iyo midda ka timaada Imaaraadka labadaba waa lagu khasbay inay maaragtay sharciga ilaaliyaan oo falaydada maadaama ay caalami yihiin ay tilmaamaan magaaladaas meesha ku taalo. kulligoodna arrintaa hadda way aqbaleen dalabkii dawladda Soomaaliyeed. guusha dawladda Soomaaliyeed ka soo hoysay arrintaas runtii weli inaguma filla. waxyaabo badan baana jira oo ma garanaysaa loo baahan yahay in laga fikiro. horta kala qaybinta dalka iyo kala dhantaalka madax bannaanideena iyo ma garanaysaa wada jirka waddankeena waxaaba ka shaqaynaya hay-ado Soomaaliya oo waddan gudihiisa ku sugan oo ay ugu horeeyaan hay-adaha lacagaha xawila balbaysi fiir rasiidkay ku siinayso iyo Hormuud iyo Amal iyo kuwa la midka Dahabshiil iyo dhammaantood rasiidkay ku siinayaan fiiri waxaa ku qoran Soomaaliya iyo Somaliland. marka dawladda Soomaaliyeed waxaa laga maarmaan arrinta inay khasabto oo hay-adahaas lacagaha xawila ay ku khasabto runtii inay midnimada Soomaaliyeed ilaaliyaan, tiididana lagala noqdo shatiga oo ma garanaysaa loo diido inay waddan ka shaqayso. waxaa kale oo mudan dawladda Soomaaliyeed runtii inay ka fikirto sida ay ula macaamisho nimanka Hargeysa ka taliya. half measures kuma filla arrintan, full measures waa in maaragtay ay meesha yimaadaan oo ma garanaysaa si buuxda loo dhaqangeliyo midnimadu inay sugnaato iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed inay sugnaadaan. waxaan u maleynayaa inay dawladda Soomaaliyeed tilaabooyin dhiiranaan leh ay ku dhaqaaqdo oo ay ka mid tahay ugu horeysa Ethiopian Airlines inay u sheegto inaanay Hargeysa ka degi karin mar dambe. waayo dawladdii halkaa kama taliso, dadka halkaa joogana dawladdii ma ictiraafsana. ha yimaadeen maaragtay Garoowe, ha yimaadeen maxaan ku yidhaahdaa Gaalkacyo, Beledweyne, meeshii ay doonaan ka degto, laakiin Hargeysa inaanay ka degi karin iyo Berbera midna waa in amar lagu siiyo. dadka halkaa aada u safraa
dareemaan runtii inconvenience-ka ama maaragtay dhibaatada arrintaas ay leedahay. markay taa dareemaan khasab bay noqonaysaa inay maaragtay ka fikiraan arrimaha ama runtii ay isweydiiyaan oo yidhahdaan maxaa danoo noogu jira annagu inaanu goonigoosad iyo maxaan rahnaa caynkaa sheegano maanu ka mid noqono soomaalida yada. cadaadisku iyo ma garanaysaa markii hardball la ciyaaro waxbay khasbaan. khasab ayay dadka wax kaga dhigaan inay dhaqankooda ama behaviorkooda bedelaan, inay ogolaadaan in la wada hadlo, inay ogolaadaan maaragtay inay ka tanaasulaan waxyaabo badan oo ay rabeen. waxaa kaloo muhiima dowladda Soomaaliyeed runtii inay cadaadis saarto bulshada caalamka oo ay tiraahdo lacag dambe oo Somaliland toos loo siinayaa ma jirto. Somaliland lacagaha deeqaha oo tooska ay dowladda Soomaaliyeed u ogolaatay waa hore in la siiyo waxay ahayd ilduuf. nin wadankii kala goynaya inaad maaragtay u dabacsanaato ama u muujiso maaragtay jajabnaan caynkaasa runtii waxay ahayd karti xumo dowladda Soomaaliyeed iyo ma garanaysaa inaanay midnimadu muhiimadda ay leedahay iyo qaranka wada jirkiisu muhiimadda ay leedahay inaanay dowladda Soomaaliyeed ama madaxda Soomaaliyeed aanay runtii siday tahay aanay u qaadan. taasina runtii dhibaato ku tahay wadankeena. waxaa la sheegay in xoolaha laga dhoofiyo Berbera. waa in loo sheegay dadka Soomaaliyeed inaanay xoolahooda halkaa geyn karin, waayo dowladdiina kama taliso. xoogag hostile oo dowladda iyo qarannimada Soomaaliyeed ku kacsan ayaana halkaa jooga. maxaa marka halkaa loo geynayaa? hala geeyo Boosaaso iyo meelihii kale ay ka dhoofi karaan maaragtay dadka Soomaaliyeed ama Muqdisho ama Kismaayo, wherever it is hala geeyo. laakiin Hargeysa waxaa habboon iyo nimanka halkaa ka taliya cunaqabatayn kasta iyo cadaadis kasta oo la saari karo in la saaro. yacni runtii ma garanaysaa dabacsanaantii iyo seeto dheerayntii iyo walaalow iyo magaciisii waxaasi meesha way ka baxeen. waayo innaga ama maaragtay dadka Soomaaliyeed oo midnimo doonka ayaa dabacsanaanta muujinaya. iyagu innaba waxaasu ma garanaysaa xisaabta uguma jirto. waxayna u qaadanayaanba wax ay maaragtay ilaahay siiyay oo kale ama kartidooda ay ku keensadeen ama iyagu iska leeyihiin. arrimahaas dowladda Soomaaliyeed waxaan qabaa inay xoog uga fiirsato oo dabacsanaan dambe aan loo muujin nimanka halkaa Hargeysa jooga. waxaa kaloo muhiima inay qaado tilaabo kasta oo lagu xoojinayo midnimada, laguna khasbayo in ay nimankaas kaga tanaasulaan maaragtay ama kaga tagaan gooni isu taagga iyo maaragtay kala burburinta qaranka Soomaaliyeed. waxaa kaloo muhiima dadka gobollada doonaya inay midowga ka mid ahaadaan ama u soo jeeda xagga midnimada Soomaaliyeed in si gooniya oo ma garanaysaa dhow loola shaqeeyo oo cid walba oo laga soo jiidan karo ama halkaa laga soo maaragtay shukaansan karo runtii lagu qaado tilaabooyin ma garanaysaa dadka ku soo jiidaya xagga midnimada iyo dowladda Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliyeed waa inay runtii dhug u yeelato oo cid walba oo ma garanaysaa midnimada wiiqaysa gudaha iyo dibaddaba ay si cad iyo tilaabooyin cadcad iyo ma garanaysaa arrin ma garanaysaa aan gabasho lahayn waa inay runtii ay runtii samaysaa. waana in laga bilaabaa nimanka xawilaadaha iyo nimanka bangiyada ka shaqeeya. waa in laga bilaabo dadyowga dibadda ka imaanaya oo ula macaamilaya nimanka Hargeysa jooga sidii ay yihiin waddan madax bannaan oo kale. waxyaabahaasoo dhan waa inay meesha ka baxaan. dowladda Soomaaliyeed waa inay exercise garaysaa sovereignty-geeda iyo ma garanaysaa awoodda ay leedahay. waa inay runtii ay isticmaasho oo say tahay ay maaragtay ay u adeegsato. waxaa kale oo muhiimad leh madaxweyne xasan sheekh si uu waddanka u hogaamiyo oo midnimada loo baahan yahay iyo dagaalka aynu maanta Ethiopia kula jiro looga miro dhaliyo. runtii waxa muhiima midnimada inuu ka shaqeeyo. wadamada maxaan ku rahdaa gobollada maaragtay isaga hadda ay isku kacsan yihiin sida Puntland oo kale inuu runtii la xaajoodo oo ma garanaysaa uu dadka Soomaaliyeed isu soo jiido oo uu ma garanaysaa ka shaqeeyo in hoggaankiisa la adeeco oo la taageero. wax ka muhiimsan ma jiraan ninka madaxda inuu midnimada waddanka uu hubiyo iyo isu haynta waddanka. waxa kaloo dhan ama ma garanaysaa political advantage halkaan aan ka qaato ama doorasho anigu aan ku guuleysto waxaasoo dhan madaxweyne ma aha runtii wax habboon ama wax ma garanaysaa dhaxalkaaga runtii bilaya ma aha. waxaa loo baahan yahay waxa weeye inaad midnimada iyo ummaddan saad isugu hayn lahayd aad ka shaqaysid oo cid walba aad xayndaabka inay soo gasho oo taladeeda la maqlo oo ma garanaysaa la dhagaysto oo la tixgeliyo oo hadalkeeda iyo ma garanaysaa ra'yigeeda wixii laga qaadan karo laga qaato in laga shaqeeyaa muhiima. madaxda Soomaaliyeedna dhammaantooda kuwa gobollada iyo kuwa dowladda dhexeba taasaa waajib ku ah. waa inay ismaqlaan oo wada shaqeeyaan. waayo meeshaynu naallo maanta ummadda Soomaaliyeed taallaa runtii waa meel aad iyo aad u hooseysa. wax kaloo dhan waa in la iska dhaafo
oo laga shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed sidii loo soo celin lahaa loo hagaajin lahaa marar badan baa ku celceliyay waana ku celinayaa maanta madaxda waddanka haysta xasan sheekh iyo dani iyo maxaan ku rahdaa lafta gareen iyo axmed madoobe iyo dhammaantood raggaasu waa raggii ugu dambeeyey oo soo arkay dowlad Soomaaliyeed oo shaqeynaysa iyo muhiimadda ay leedahay markay dowlad Soomaaliyeed shaqeyso iyo macaanka ay leedahay waxaa dadka maanta galaya siyaasadda oo magaranaysaa jiilkii labaad oo aan dowlad arag ayaa maanta hanaqaad ku dhow haddii aydan marka uga tegin dowlad Soomaaliyeed oo shaqeynaysa oo caadi kusoo noqotay u malayn maayo inay dadkaasi isu imanayaan waayo maba yaqaanaanba they don't even have the concept of government iyo unity waxay yaqaanaan maxaan ku yidhaahdaa qabiil iyo jifo iyo kan iyo magaciisii marka idinkay idin haysataa maanta sida aad runtii arrintaa xil isaga saartaan iyo sida ay tahay runtii arrintaa inaad ugu jahdaan idinkay ma garanaysaa waajibkaasi idin saaran yahay taariikhduna taasay xusi doontaa waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay taageeraan madaxda iyo ma garanaysaa midnimada waddanka Soomaaliyeed inay iska dhaafaan waxyaabaha aan muhiimka ahayn iyo waxyaabaha ma garanaysaa ina kala wiiqaya ugu dambeyn Ethiopia waa mas weeye masna waxa weeye runtii aan kalsooni ma leh lagumana kalsoonaan karo marka dowladda Soomaaliyeed wixii hadda ka dambeeya waa inay runtii hardball ciyaartaa Ethiopia sovereignty-geena iyo waxaana gorgortan kama geli karo mana weydiisanayno inay iyadu maaragtay ay noo ogolaato inaanu madax banaanaana macaanka ma ahin waddan gumaysi ku jira iyo waddan la haysto midna shuruuc caalamiya iyo xuquuq aynu leenahay baa jira marka xuquuqda iyo shuruucda sida ugu weyn oo aynu isticmaali karo inaynu u isticmaalno khayr baan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay waxaan uga baryayaa inuu midnimadeena iyo qarannimadeena hagaajiyo oo maar garanaysaa sanadka maanta sanadkiisa aynu inagoo sidaa ka wanaagsan oo wada jirkeena iyo dowladnimadeena iyo dadnimadeenuba ay ka wanaagsan tahay runtii aynu gaaro oo cabdi maxamuud qalla barnaamijkii idinka iman jiray macadka nabadda iyo bulshada walaalayaal caawa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh